qoraal kooban oo ka soo baxay xarunta madaxtooyada Puntland waxaa lagu sheegay in hadalka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya uusan ahayn hadal lagu taageerayo sharciga doorashooyinka ee horey u ansixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya balse uu yahay mid lagu hor istaagayo dadaalada ay wada Puntland. guddiga doorashada dowladda federaalka ee Soomaaliya hadalka ay hadda jeediyeen ma aha mid sharci hore la ansixiyay lagu taageerayo waxaan u arkaa mid lagu hor dhacayo dadaalada ay wada Puntland laguna fashilinayo gogasha wada hadal ee taalo Garowe. waana tallaabo labaad oo jidgooyo ah marka laga soo tago war-saxaafadeedkii golaha wasiiradu ay qabteen ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland. dhinaca kale siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeestay hadalkii gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ee maanta ay ku sheegtay in ay ku taageersan yihiin ansixintii sharciga doorashooyinka.